السلام عليكم. ملك الصوت دولة على سكت شوكتان مضى ماريات وحن لا السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام والسلام لله. صقلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أرشف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى: وجاء حق والسحق بادلا إن كان بادلا سولا. سود هذا إن شاء الله يمكن مرتي halkani waa Empire of the Wall oo idin soo gudbinaya barnaamijkii faaqidada siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Alaaba sidaad nooga barateen caawa barnaamijku wuxuu daaran yahay xasuuqii dhargigii ama taliskii xukuumaddii dhargiga iyo SNM oo isxambaarsanaa oo aan caawa kaga hadli doono. waxaan kaloo insha Allah aan kaga hadli doono iyadana gabadh Soomaaliyeed oo magafuhu ku haysto dalka Liibiya iyadoo markaas si xun loo jirdilayo. marka ummadda Soomaaliyeed cidii walaasheen wuxuu qabanaysaa wuxuu tari karta waxa weeyaan waa ajar baad ka helaysaan in maartay inaan iscaawino weyn wa tacaawunu cala albirri wa taqwa. in la iscaawiyo waa muhiim, in walaasheen cidii caawin kartana uu caawiyo insha Allah. fiidiyogeygana waan idin tusin doonaa ciddii eheladeeda iyo qaraabadeeda maartay soo sheegeen la xidhiidhi kartay garanaysana inay la hadasho weeyaan insha Allah hadduu la idhaaho. calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. suldaanka bariga aad baan ku salaamay mujaahid. inoo sheergareeya barnaamijka guud ahaanba inoo sheergareeya barnaamijka. waxa weeyaan barnaamijka waxaan markaa imika ku bilaabi doonaa heestii qiirada lahayd ee maartay isoo sheegeen ay qaaday Faaduma Qaasin Hilowle markuu wadanku burburay ama degalkeenii Soomaaliyeed iyo dowladdii iyo nidaamkii systemkii Soomaaliyeed uu burburay. guud ahaanba matalaysa kana hadlayso dhibaatooyinkii ka dhacay geyga Soomaaliyeed guud ahaanba iyo maartay barakici iyo qixi dadku wuxuu baday ay ka hadlaysaa 1990 iyo maartay 293 ayay qaaday heestaasi. marka insha Allah maartay dhegeysi wacan guud ahaanba. dalkaygo dushaadu waa barwaaqe dabayshaadu waa udgoonte. dalkaygo dadka waxaa ugu garaad xun kuwa nimcada eebbe ku galladay aan garanay. duulkaygii adduunka ugu fiicnaa uu guula siiyey, laakiin iyagu aan garwaaqsan waxayna wada goobayaan sida ay dal shisheeye kusoo wada geli lahaayeen. dalkii gube oo gurboodkii dile hooyooyinkiina gablamiye, saasay nabadiina ku gudhay. muusiga dhagihiina kusoo dhacaya wuxuu hordhac u yahay hees dhawaanahanaydan maqal oo dib idiin dhaadin doonta. waa hees dib loo soo cusboonaysiiyey waxaana laga dugsanayaa gobolladii hore ee calaykum assalaam liibaan Faaduma Qaasin Hilowle aan ka qaaday lagu soo duubay kuuguel iyo halkii Hindiya iyo webiyada iska galaan ayaa waxaa codkeeda ku gelgelaya idin kusoo gudbinaysaa xidigta luuqda gaarkaa leh Faatxa Nuur, farsamadii Cabdiqaadir Jaamac. waa Cabdi Askar oo idin leh dalka war dalka ma u damqataan. calanka la soo geliyo dalkaygo doorsanaya iyay dunidaba ku taala dalkaygo
دقوشين كلا دافعوا علي أيام نفتح صوت شرابي بالكيو. عليكم السلام. علي أيام نفتح صوت شرابي بالكيو. نظيف علي عليكم السلام. أدعوكم السلام يا برواقي بالكيو. نشهد وأدوني بالكيو. برواقي بالكيو. نشهد وأدوني بالكيو. ماني ماني بالكيو. هيه وشايا يدري قبل تالا بالكيو. تالا بالكيو. ماني ماني بالكيو. عليكم السلام. ميتوني قبل تالا بالكيو. laga xiisadhacaya maaha. waa xusuustii Faadumo Qaasin Hilowle iyo codkeygii wanaagsanaa oo gabadh Soomaaliyeed oo kale iyaduna qaadaysa la yiraahdo Fatxiya Nuura. heestaas waxa weeyaan heesaha markii laga soo qaxay wadankii ama degalkeenii Soomaaliyeed guud ahaanba uu burburay ee nabadii ay maartay burburtay iyo kala dambeyntii maamulkii dawladnimo uu burburay ay dadku qaxeen ay wixii mid ku qaatay heestaas iyadoo markaa iyaduna soo qaxdo degan magaalada Addis Ababa. waxaan ku kulanay magaalada Addis Ababa ayaanu ku kulanay Faadumo Qaasin Hilowle. Allahu naxariisto intii dhimatay, Allahu naxariisto waalidiintiina, Allaha u naxariisto intii dhimatay, inta noolna Ilaahay maartay caafimaad taam ah siiyo. guud ahaanba meel kastoo dunida aad ka joogtaan dacaladiisa ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Islaamka waxaan leeyahay ku salaamaya salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. halkani waa Empire of the World oo idin soo gudbinaya barnaamijkii faaqidada siyaasadda iyo arrimaha bulshada. laba sida nooga barateen barnaamijkan waxaan soo galnaa maalin kasta goorahan oo kale ayaanu soo galnaa ama waqtigan oo kale. haddaba caawa barnaamijka waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa xasuuqii ba'anaa ee taliskii xukuumaddii dhargiga iyo SNM oo isxambaarsan ay ku soo galeen gobolada Awdal 1991 4 February. magaalada Dila iyo Boorama guud ahaanba dadka rayidka ah ee iskugu jiray dadka birimageydada ah ee dumarka iyo caruurta iyo waayeelka oo deegaanka dagaalkaasi oo u dhaxeeyay SNM iyo xukuumaddii markaasi dalka ka jirtay ee kacaanka ahayd u dhaxaysay. kadib markii dadkaasi ay ka qixi kari waayeen ama birimageydadii ay maartay barakici kari waayeen dadka maatida ah ee maartay caruurta iskugu jira, kadib ay halkaasi ku xasuuqday SNM. ogeysiis waxa aan ogeysiinaynaa dhammaan dadweynaha iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, ciroole iyo caruur iyo dhalinyaro
iyo gambooleyba ina ay u istaagaan maalintii madoobeyd ee 1991 February 4 February xasuuqii xaqdarrada ahaa ee raalaha xoogaa waa laga dhaxgalay waxaan guud ahaanba ummadda u sheegayaa inta aan ku jiro barnaamijka inaan laga soo wicin halkan waxa weeyaan live ayaan ku jiraa intaasaan idin codsanayaa xoogaa maartay barnaamijka waxa weeyaan waa inaan markaasi qofkan aan la hadlo u sheegaa maartay qoraal u qoraa raalaha xoogaa maartay dad baa iga yar waxaan ku jiraa maartay live ayaan ku jiraa inta aan live-ka ku jiray ayaan laga dhaxgelin live-ka ogeysiis waxa aan ogeysiinaynaa dhammaanba dadweynaha iyo bulshada qaybaheega kala duwan ee ciroole iyo caruur iyo dhalinyaro iyo gambooleyba in ay inay u istaagaan maalinta madoobeyd ee 1991 February 4 xasuuqii xaqdarrada ahaa ee uu ka geystay hogaamiye kooxeedkii SNM iyo taliskii nuglaa ee dergiga ee uu hogaaminayay Ethiopia Migista Haile Mariam iyo taliyihii ciidanka bariga Girma Wadange Kitajo oo ku noolaa magaalada Hargeysa 1991 ilaa 1995 isagoo markaas ahaa taliyaha markaas haystay qaybta bariga oo markaasi ciidanka huwanta ee maartay soo sheegaan la shaqeynayay markaa ciidan SNM jabhadii SNM haddaba kadib dowladii maxamed xaaji Ibrahim Cigaal ayaa waxa ay wada yeesheen waxa la yiraahdo wada hadal iyadoo kaasay ay isku weydiisteen in la isku soo gudbiyo xuduudahana in la isku furo in laga shaqeeyo arrimaha maartay soo sheeg xiriirka caalamiga ah iyo amniga labada dal in la isku soo gudbiyo maxaabiista ka soo baxsatay Ethiopia iyo kuwa kale kadib wuxuu go'aan ku qaatay maxamed xaaji Ibrahim Cigaal in uu gudbiyo oo malas xukuumadii uu gudbiyay kadibna waxa laga qabtay magaalada Hargeysa kadibna waxa markaasi loo gudbiyay iyadoo markaasi ay ahayd gadaal falayo fara badan oo gobolka Tigray uu ka geystay isaguna intaan loo soo gudbin ama loo soo bedelin brigade-ka bariga ee Ethiopia maartay loo soo gudbin korneelka ama janankaasi kadib markaasi waxa loo gudbiyay ciidamadii Tigrayga ahaa waxay markaasi ka gudteen waajibaadkooda iyadoo markaa diltooda sha'a lagu qaaday maadaama uu xasuuq badan ka geystay waxay maalinta ay ahayd maalintii ugu farxadda badnayd kadib markii aan ogaaday inuu ahaa ninkaasi ninkii ka dambeeyay ama la shaqeynayay maartay taliskii SNM jabhadii SNM ee soo gashay taliskii dergiga ahaa ee ahaa maartay inuu ahaa brigade-kii bariga ninkii haystay waxaan markaasi guud ahaanba halkan aan caawa ka xusaynaa maalintii madoobeyd iyo xasuuqii ba'naa ee gobolada Awdal laga geystay haddaba dadka waxaan xasuusinaynaa guud ahaanba dadka gobolada Awdal Salal iyo Gabiil ay ku nool iyo Dila in ay maalinta u sara kacaan in maalinta ay xusaan maalinta ay tahay maalinta madow ah guud ahaanna waa maalin aad u madow oo guud ahaanba gobolada Awdalna ay tahay maalintii xasuuqa laga geystay dadka maatida ah iyo bulshada rayidka qaybaheega kala duwan kuwaas oo ahaa kuwa qixi kari waayay iyadoo markaasi jabhadii SNM si xaqdarro ah ay u dishay iyadoona wada ogsoonahay dowladda xilliyadii jabhadaha la isku sameynayay jabhadii ugu horeysay ee baxday SNM Ethiopia oo baxday waxa ay ahayd ama saan oran karno siyaasadii ka dambeeyeen gumaystayaashii wadanka soo gumaystay oo Ingiriiska uu kamid ahaa
oo markaa dee xagga dambe maaragtay isoo sheeg ku jiray oo markaa etoobiyana maaragtay garab ku siinayay iyadoo markaasi etoobiyana markaa guud ahaan danahay ka lahayd ahayd dagaalkii 77 colaadii ka dhaxaysay in jabhado laisku sameeyo oo jabhad ay iyaguna SNM halkaas ay kasoo abaabulaan haddaba waxa weeyaan su-aasha isweydiinta mudan waxa weeyaan dadka gobolada awdal ku nool ee rayidkii ma waxay ahaayeen dad u shaqaynayay maamulkii maxamed saad barre mise waxay ahaayeen dad ka tirsan ciidamada militariga ayay ahaayeen mise dad bulsho rayid ay ahaayeen waxay ahaayeen dad bulsho rayida kadibna dagaalkaasi oo guud ahaanba soomaaliyaba qabsaday koonfur ilaa iyo waqooyiba qabsaday haddana dad loogu yimid deegaankoogii oo qixi kari waayey oo inuu colaadaha jira ka qixi kari waayey guryaha inta loogu yimid kadibna maaragtay loo dilay isirnacay iyadoon la garanayn ilaa iminka qaabka loo dilay iyo waxa lagu dilay waxaynu ogsoonnahay waxaa dagaaladaasi fududeeyey oo dagaalkaa geystay marka aanu farta ku fiiqno ama aanu taabanno muuse biixi oo ah iminka hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan iyo cabdiraxmaan oo cali faarax oo isaguna ahaa ninkii la socday ee ku soo dhex dhiigaystay loona soo maaragtay diray uu ahaa haddaba waxa arrintaa mudan waxaanu dib u dhigan doonaa insha allah maalinteeda ayayaan ka xusi doonaa kana hadli doonaa barnaamij ka ballaadhanna waxaanu si fiican usoo geli doonaa iyadoo aanu qaadaadhigayno hufayno hilaacinayno taariikhihii madoobaa ama historygii black historygii soo maray guud ahaanba gobolada awdal ee uu SNM ururkii la oran jiray Somali National Movement iyo abaanduulihii qaybta galbeedka iyadoo taas lagu kala duwanaa kaga sheekayn doonaa isagoo markaa kala duwanaanshahaasi ay keentay raggii ka soo horjeeday ee ahaa SNM calan casta iyo calan cadu markay isqabatay raggii uu ku dilay ayaanu soo bandhigi doonaa magacdoodii iyo diidanaa in dagaal sokeeyo oo maartay lala galo wadanka ka hor yimid oo la dilay oo dil u geystay toosa maadaama ay ka hor yimaadeen mabaadi'da uu isagu ku socday waxaan ku qaada dhigi doonaa insha allah hadduu la barnaamijkeenan February afarteeda oo maalinta xuska ay tahay maalintii madoobeyd xasuuqii ba'naa ee gobolada awdal laga geystay insha allah waxaan markaa dadka ogeysiinaynaa guud ahaanba inay u kacaan dhalinyaradu inay maaragtay u kacaan inay maalintaasi xusaan in maaragtay ii soo sheeg waxa weeyaan ragba waa ragayga maanta inay xusaan qofka inuu waalidkiisii iyo ehelkiisii la dilay ilmaha 1991kii hooyadii iyo aabihii iyo walaaladii la dilay isagu uu ka hadhay keliya tiiraanyada iyo caloolxumada uu ku soo koray uu ku noolaa waxa weeyaan in maaragtay ii soo sheeg uu xusi waayaa iyaduna waxay tahay mid kale iyo guumaysi kale oo qalbiga ka gashay ay noqonaysaa waxaan leenahay markaasi dadka gobolada awdal ku nool awdal salal iyo gabiilay waa inay u kacaan waa inay taariikhda madoobeyd ay xusaan waa in guud ahaanba bulshada gobolada awdal maalintaasi waxaanu ka codsanaynaa anigoo ku hadlaya afka maaragtay jabhadaha gobolada waqooyi ee ururka ay ku midoobeen ee ah Northern State of Somalia anigoo ah xogayaha arrimaha difaaca ee jabhadaha gobolada waqooyi waxaan halkan uga dhawaaqayaa oo aan leeyahay inaad u kacdaan danihiina inaad u kacdaan weeyaan xasuuqa iyo dhibaatada loo geystay dadka iyo ehelada oo aad xustaan maxaa diiday inaad xusto maxaa diiday in maartay la yiraaho waxa weeyaan it's not fair maaha wax cadaalada in la yiraaho hargeysana la saaro diyaarad la yiraaho waana la xasuuqay dadka gobolada awdal ee uu Muuse Biixi oo maanta nool oo xay dadkii uu laayay eheladoodii maatida ahaa ee gumaaday in la yiraaho ma xusi kartaan waa arin aad u foolxun waa in dadka gobolada awdal toosnin la u galgasho tolna u ergeeya waa inay arinta u kacaan waxa la yiri Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin maaratay nin ku sahansaday kuma seegana ninku sahansaday kuma seegana waxa way dadka gobolada awdal degani ina ay
maaragtay bustaha hoosteeda ku jiraan ma aha waa inay ka kacaan waa inay codkoogana kor u qaadaan indhahoogana kor u qaadaan una kacaan maalintii xasuuqa loo geystay dadka ehelada iyo qaraabada ay ahaayeen ee maaragtay qaarkood ku nool in loo kaco guud ahaanba anigoo halkan markaasi uga tabinaya inay maalintaasi u sara kacaan maalintaasi waa it was black day waa maalintii madoobeyd baa la yidhaahaa waa maalin aada u madow waa mid la oran karaa humanitarialka wax sharciyada humanitarialkana ka hor imanaysa ee arrimaha bulshada ama sooxda dadka rayidka way jiri kartaa weligoodba jabhad way gashaa meel way qabsataa laakiin inay gadaal faro u geysato dadka rayidka ah waxa weeyaan waa mid aan sharciyada adduunkana ku jirin diinta islaamkuna ayna qabin oo daalinimo ah waa daalinimo cad diinta islaamkuna way caddaysay inuu daalim qofkaa yahay qofka dila dad oonan dagaal ama kula jirin oo markaa dagaal uu kula jira ayna jirin oo xaq aan ahayn in si xaq darra ah loo dilo ayna banaanaynba qofka oo diinta islaamku xaaraantinimaysay haddana arrintan jabhad isagoo haddana inuu laayo dad rayid ah oo la dilo dad rayid ah oo maati iyo caruur iyo birimageydada dadka la yidhaaho ee loo yaqaano in la laayo dadka waayeelka dumarka caruurta dadka xanuunsanaya dadka culummada ee masaajidada ku jira intaaba iyo kaniisadahaba humanitarian lowga wax ka hor imanaya weyaan annaguna waxaanu la tiigsanaynaa sharciga Geneva Convention ay jidaysay ama jabhad ahow ama maxay ahow dadka rayid bay ahaayeen maxkamadda criminal courtkana waanu hor dhignay dembigaasi it is clear waa wax cleara waa waxaanan lagu qarin karin daaha hoostiisa cidda uu la dagaalamayay waxay ahayd ama uu ka soo horjeeday the military iyo dowlad system ah oo jiray markaa kacaana ayuu la dagaalamayay oo jabhaddu la dagaalamaysa laakiin lama dagaalamaynin dadka gobolada owdal degan ee rayidku uu lamay dagaalamaynin dilalka kala duwan ee foosha xun leh ee maaragtay xabaalwadareedyada meesha lagu wada aasay ee guud ahaanba ee qayaxan eenu hayno iyo documentariga laga sameeyo o dhan baanu gacanta ku haynaa waxaanu ku haynaa wax la yidhaaho xaqiiq ah oo aanan laga lexleexan karin sharciyaduna la horkeeni doonaa waktigeega salaada waktigeega la tukadaa waktigeegaan horkeenaynaa ama 80 ahow ama 90 ahow ama 100 ahow ilaahow maad 120 jirtid adigoo uljida maxkamadda waan ku soo hor saaraynaa talabaad ee meeshaan leeyahay waxaan halkan kaga sheegayaa wax kasta waxay u baahan yihiin halganka gobolada awdal udub dhaxaadkiisu wuxuu yahay faldambiyeedyada laga geystay ee SNM ka geysteen mar walba ilaa imikana ay ku wadaan xasuuqii ugu dambeeyay ee loo geystay brofeserada wadada jidka marayay ayaa ka mid ah waxa ka mid ah dadka loo geysanaya ee iyaguna ah maartay ganacsatada ah ee la doonaya in faalakada laga saaro oo ahaa dhacdadii ugu dambeysay sanadkan aan soo dhaafnay 2019 ka dhacday magaalada Wajaale iyadoo taasina tahay mid ku salaysan kuwii genocide-ka ahayd dabada ku wadata oo ah mid maartay soo sheeg isirnaacayb ah oo la rabin qofkan inuu qof maadaama gobolka awdal ka soo jeedo inuu noqdo qof aqoon leh inuu noqdo qof ganacsiga ku fiican in faalakada laga saaro anigu bay ugu wanaagsantahay adiga kuma fiicno arrin ayaa ka jirta sababta loo dilayna waa taas haddaba waxaan halkan uga sheegayaa dadka aaminsan in Somaliland cadaaladi ka jirto ama ooyay la soo istaagaya oranaya intay duubabka soo qaataan casalka soo istaagay Muuse cadaalad baan doonaynaa daarsno Muuse cadaalad nin haya ma cadaalad xumada iyo cadaalad darrada iyo buqtiga iyo xumaantuba halkay ka timaado waa guriga Muuse iyo meeshu Muuse naftarkiisa ka timaada waana hogaamiye kooxeedka dibta geystay
cidda uu meesha la hadlayay waxa weeyaan qofku inuu garaadkiisu shaqeeyo wanaagsan gobolada awdal waxaa lagu xantaa inay yihiin dad aqoon iyo cilmi leh edebna leh laakiin aqoontoodu maaha mid u iftiiminaysa dulmiga jira alcilmu cilmiga marka laga hadlayo ama hoos loo raaco waa maxay cilmiga sababta loo baranaya su-aashaasaa meesha taala cilmigu waa inuu xaq iyo maarata xaaraantiiyo xalaasha ku kala tusaa xaq iyo xaqdaradana ku kala tusaa haddii xaqdarada aada garan weydo waxaad tahay dameer malab sida ma tihid qof cilmi leh cilmiga diiniga marka laga hadlayana waxa weeyaan qofka maaragtay iisoo sheegaan cilmigu leh dadka kale lama mid aha waa qof ka cilmi maaragtay ilaahay baa aayaadkiisana ku sheegay xagga maadiyan markaanu ka hadlana iyo caqliyan aan ku hadalnana uu ka duwan yahay waxa weeyaan qofka markuu leeyahay ilaahay baa subxaana wa tacaala aayaadkiisu ku leeyahay man yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyaad simantihiin kuwiina cilmiga la iyo kuwiinaan cilmiga la may hadda cilmigu waa maxay cilmigu waxaa la doonaya cilmu diiniya cilmi diiniya haddaad leedahay iyo mid maadiyaba waxa weye qofka caqligiisay kabtaa wayna hagtaa xaqa iyo xaaraantiiyo xalaashay kala tustaa xaq iyo xaqdaraduu kala gartaa qofkaasi marka dadka gobolada awdal ku nool weli waxbaa iskaga laaqan aqoon maaha qalinku waa inuu xaaraantii xalaasha kugu tusaa xaq iyo xaqdarada inuu ku tusa weeyaan xaqdarada gobolada awdal lagu hayo weli dad baa indhaha ka dadanaya soomaalidu waxay ku mahmahdaa dumaal nin ka xishooday kama dhalo in xishood maanta waxa weeyaan wax la xeeriya ma jirto maanta nin wax xeeriya rag xeedho lama cuno xeedho lama cunaysid xeedho lama wadaagaysid haddaad u xeerinayso xeerin way dhammaatay it is over way dhammaatay never give up dib dambana arrintaasu ma dhacayso dadka gobolada awdal baan la hadlayaa cod dheer iyo cod gaaban kula hadlaya maanta waxa weeyaan maalintii halganka weeyaan dadka gobolada awdal dad dulqaad badan bay ahaayeen laakiin dulqaadkaygii maanta way dhammaatay dulqaad dambe ma jirayo idsawarlaan dhulkayaga anagaa iskale cadowna ma haysan karo mana joogayo hal qof oo maaragtay deegaanka ka soo jeeda ama muuse uu matalo oo muuse ka socda ma arki karayno gobolada awdal sida ugu dhaqsaha badan leh waa in dadka gobolada awdal ay u kacaan tuus nin laa u galgasha tulna wuu ergeeyaa arrintan aday kuu taalla cidda haddaad moodayso in dad kale ay kaaga imanayaan waddan kale oo inay deegaankaaga iyo dadkaaga lagu hayo dhibaatada iyo xasuuqa iyo gumaysiga lagu hayo inay cid kale badbaadinayso cidda moodayso ma jirto cid ma badbaadinayso waxa weeyaan waxaa la ydhahaa siyaasad iyo dhul hadiyad layskuma siiyo adduunka hadiyad waxa la isku siiyo lama arag midda kalena ku darsada adduunku waxa weeye wuxuu marayaa wax la ydhaaho isriixriix adduunku wuu isriixriixaa qaarado dhan baa la waayey oo wax yar kusoo hadhay waxaa ka mid a oon idiin tusaalaynayaa dadka laydhaaho barma waddanka la ydhaaho ee mar walba iyo rohingya xasuuqa loo geysta mar walba waxay keento waxa la ydhaha barakac way barakaceen deegaankay deganaayeen waxay noqotay united nationka inuu maalin walba u hadlo uu yidhaaho dadkan deegaankooga u daaya maxaa markaa lagu ereynayaa si kasta ha ahaato ama ha ahaato waxaa la ydhahaa cusurnimo xagga diinta ah ama ha ahaato cusurnimo guud ahaaneedba in dhulka laga barakicinaya waxaad gobolada awdal ku dambayn doontaan is the same taas baad ku wada dambayn doontaan in laysweydiin doono oo united nationka oran doonaan yaa iska lahaa historyga ku qoran buugagan weer halkay ku dambeeyeen haddii aad ka kici weydaan gobolada awdal oo aad u kici weydaan maslaxadda dantiina iyo diintiina iyo dalkiina maslaxadda dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina ilaahay subxaana wa tacaala idin faraya inaad dulmiga iska hor qaadaan cidna dulmi ma ogola laa yukalifu llahu nafsan ilaa wascaha nafna ilahay ma kalifo nafna ilaahay ma dulmiyo inay iyadu isdulmisa mooyaane dulmiga cidda isku wadaa waa dadka gobolada awdal iyagaa isku wada dulmiga been idii sheeg maaha cid kale lama yeersanayo adigaa dulmiga isku wada
waxaad dulmiga iskugu wadaa xaq iyo xaq maarata xaqii iyo xaqdarradiiba iskaga kaa dhexlaaqan waxaad adigu lahayd iyo waxaad dadka kale leeyahay baad weli kala garan lahaada waxaa loo baahan yahay maanta uma baahna wax la yidhaaho in la cabudo cabasho dambe way dhammaatay lama cabanayo wixii ka dambeeya geed weyn ma baroorto in la baroorto maaha in la qaato maaha waa in la sara kacaa waa in xaq loo sara kacaa dadka aan la hadlayaana lafdhabarta bulshadu waxa weeyaan ummad kasta lafdhabar bay leedahay nation kasta lafdhabar buu leeyahay lafdhabartu waa dhalinyarada waxa weeyaan raqii turuqyada adkaa tunkooga libaaxa ahaa tallaabo xumaa bedelay rag baa jiray gobollada awdal aan lagu soo hardamin loona soo dhowaan xitaa axmed gurey marka laga yimaado taariikhda marka dib loo eego rag baa jiray agtoodaan la soo marin oo halkan nin 30 nin u dhigmayey maanta waxaa la taagan yahay qaniya kaa furta ciddii maanta ku seexanaysa ee ku soo toosaysa ama lagu sabaalaynayo sidii maaragtay sabi ilma sabiya loo sabaalaynayo ee loo soo marayo maaragtay duubabkii iyo wixii la oranayo golo dhaqmeedka loo soo maraye golo dhaqmeedka laaluushi golo dhaqmeed kuma matali karo haddii uuna matalaynin gobollada awdal xuquuqdooda iyo xaqoogii wixii ka maqnayd uuna raadinaynin oo uu isagii duudsinayo kuma aha kaasi ma aha xadiis rasuulka calayhi salaatu laga soo wariyey maaha amiir maaha yaan lagu xadgubin la yidhi maaha waa bini aadan hadduu qaldamo oo laaluush sameeyo oo corruption sameeyo wuxuu la mid yahay waynu casilaynaa cadowgaaga qofka kaaga soo horeynayana inaad u fiiro yeelataa wanaagsan gobollada awdal haw ka candanahooga markaasi waxaan markaas aad baan ugu dheeraaday waxaan ku nasan doonaa xoogaa maaragtay insha allah barnaamijku halkani waa empire of the wall oo idiin soo gudbinaya barnaamijkii faaqidada siyaasadda iyo arrimaha bulshada maanta wuxuu daarnaa oo in dadka xagga dambe ka soo galay baan xoogaa maaragtay maanta wuxuu daarnaa barnaamijka faaqidada siyaasadda xasuuqii ba'anaa ama the black day maalintii madoobeyd ee gobollada awdal ee ay soo galeen maaragtay taliskii dergiga iyo snm oo isxambaarsan oo nagu soo food leh dhowaan in loo kacona ah february 4 february 1991 waxaan kaloon iyadana maaragtay soo qaadaa dhigi doonaa insha allah marka aan qadar yaroo muusiga dhegaysano kabacdi waxaan soo qaadan doonaa gabadh soomaaliyeed oo magafayaasha ku haystaan magaalada maaragtay waddanka libiya guud ahaanba waxa weeyaan iisoo sheegaynaa iyadoo markaa video aada u foolxun laga soo duubay oo markaa jidhkeyga lagu dilayo waxa weeyaan inaan isku dirnaxno weeyaan ummadda soomaaliyeed iyada walaalaha ilaahay dartii qofkuna inuu qofkii awoodi karaa ee gabadhaasi dhinac kasta si siyaabo kala duwan baad qofka u caawin kartaa qofkii ehelkeygii qaraabadeyda garanaya inuu u gudbiyo hadduu awoodi karaa inuu wax ka bixin karaana uu ka bixiyo walaasheen wixii qof walba uu awoodi karo uu maaragtay ka bixiyo waxa weeyaan ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay maaragtay soo sheegay maaragtay rasuulka calayhi salaam xadiis qudsi buu ku leeyahay adduunka dushiisa iskugu arxama aniguna samadan idigu arxamaya ama idigu naxariisanaya marka waxa weeyaan in laysku naxariisa wax wanaagsan gabadhaana maaragtay videogeygan xoogaa soo yar saari doonaa laakiin iminka waxaan ku yar maaragtay yar wada dhegeysan doonaa insha allah heestii aan ku wada nasan doonaa heestii faadimo qasin hilowle oo maaragtay hees xasuus badan hees xilligii dowladdii soomaaliya iyo maamulkii iyo sistamkii soomaaliyeed iyo dowladdii lagu hiran jiray adduunkuna ay ka gaban jireen waqtigaa waxayd waqti history fiican leh adduunkuna ay aada uga cabsan jireen loo oran jiray the hero of africa the horn of africa loo yaqaanay marka ay dhulka ku dhacday markii maaragtay ummadda soomaaliyeed ay burburisay marka iyagu dhexdoodii ay iscuneen ay dixdii sundaacday ayaa nafta lasoo tallaabay heestaas ayaan ku celinayaa insha allah waa hees aad iyo aad u taaban karto qof kastoo wadaniyadii iyo dadnimada soomaaliyeed ay ku jirto waxaan markaa imika noogu luqmeynaya allahu naxariista faadimo qaasin way dhimatay qabriga allahu nuuro
fatxiya nuura oo dib u soo qaaday dib u soo cusboonaysiisay ayaanu wada dhegeysan doonaa insha allah. dalkaygo dushaadu waa barwaaqe dabeeshaadu waa udgoonte dalkaygo dadka waxaa ugu garaad xun kuwa nimcada eebbe ku galladay aan garanayn waa duulkaygii adduunka ugu fiicnaa uu la siiyey laakiin iyagu aan garwaaqsan waxayna wada goobayaan siday dal shisheeye kusoo wadageli lahayn dalkii gube oo gurboodkii dile hooyooyinkiina gablamiye saasay nabadiina ku gudhay muusiga dhagihiina kusoo dhacaya wuxuu hordhac u yahay hees dhawaanahan aydan maqal oo dib idiin daadin doonta waa hees dib loo soo cusboonaysay waxaana laga dugsanayaa gobolladii hore ee dalka iyo baynu Stefanka Faaduma Qaasimilow muuqaalkan oo lagu soo duubay Goobuel iyo halkay badweynta Hindiya iyo wabiyada iska galaan ayaa waxaa codkeeda ku bilkilayay ugu dalxiiska badnaa quruxda badnaa Faatxanu farsamadii Cabdiqaadir Jaamac waa Cabdi Askar oo idin leh dalka war dalka ma u damqataa منى عبد الله آدم كسلامة عليكم السلام شباب ميديا حسين آدم كسلامة حسين زام
dunida waa ku jaalaa dalkaygu. dalkaygu dushanaya gobolladii hore ee dalka farsamadii cabdiqaadir jaamac inoo sheer gareeya barnaamijka gruubyada iyo ku tuura maaragtay soo sheeg. muna cabdilaahi barnaamijkan idigu ayaan geli doonaa insha Allah. dunida waa ku jaalaa dalkaygu.
doorsanaya miyay dunida ku taala dalkayga axmed muuse aad baan ku salaamayaa فاطمة قاسم لون وقال كان والله قصة دوبي كوبوين إلى هالكي بدوين تهندي إلى وبيدا إسكاكلا أيا وحا عود كذا كوكل كلا يدي كسو كتبري ساحي دكتور لوغ ذكار كالي فتحانون فرسمة دي عبد القادر الجامع وعبد ياسكر ويدين له دلكا وردلكا ما مضم غطان
taasina waxay ahayd heestii dalkaygow oo ay hore u qaaday Faadimo Qaasin Hilowle iminkana dib u soo cusboonaysiisay Fatxi Nuur oo iyaduna maartay dib u soo qaaday oo cod halaasiya leh runtii waxa weeyaan waa hees qiiro badan oo aad qofka xasuusinaysa waqtigii 1991 markii dhulkeena hooyo ama dagaalkeenii hooyo uu baaba'ay oo burbur iyo markaasi uu galay iyadoo markaa dagaalo sokeeyo oo ba'ani ay ka dhaceen kadib markaas ay noqotay nin walba meeshii naftiisa ula carari karo ula cararay caruurtiisa ula carari karo dad badan ay halka ku leedeen oo markaasi Allah u naxariisto intii dhimatay intii dhibta ka soo gaadhayna Ilaahay maarta uu boogadhayo oo maarta dad badan oo waxa jira culiyaamiina oo dagaalada sokeeye ay soo gaarsiiyeen dhibaato iyo kuwa badan oo maarta dagaalada sokeeye ay ku keeneen xanuunada dhibirka ah runtii waxyaalada ay keenaan weeyaan dagaaladu keenan ama dagaalada sokeeye keenan waxa kamid ah xanuunada dhibirka ku dhaca oo dadka kaga dhaca oo markaas wadankaasi markuu waqti dheer ku jiro dagaalo badan uu ku jiro waxa weeyaan inta badan dadka deegaankaasi degan waxa weeyaan biyad fiican ma joogaan waxa weeyaan mental ahaan iyo maskax ahaan أنا سببت كثير إنه مدة الصومالية فهم لأني إيه كمان تلحد وده يكون هذه جيرة يضحك شو أو يسفهم بكرينين أو أي تهاي إن قلب كلايس كيلا رسا أي تهاي وحلا لها أم حنون كان ليلاه فيروس كدرن HIV ليلاه ترابليسم قبيلة ده حنون كوحن وين حنون كاسي دجلدن بو بابية أما قارد وضنا دن بو بابية هوي أنا مركز قبيلة ده سوحي كان يساين وضن كو بابا in dalkuna uu baabo oo dadkuna ay baaba'aan waxa weey dal iyo dadba uu baabiya marka qabyaaladu waxa weey dugsi mala qabyaaladii waxay dumasay mooyaan anigu baad damqanay dhawu ma daloolaane waka suldaantima cadaw sida oran jiray oo marka waxa weey waa duni qalbiga laga wuxuu yiri waa duni waxa weeyaan waa duni qalbiga doon laga saaray anigu baad damqanay dhawu ma daloolaane dugsi mala qabyaaladii waxay dumisay mooyaan wuxuu dab meeshaad ka baqtiyso meel kale u doob ka qiiqaayay runtii waxa weeyaan maartay abwaanada Soomaaliyeed waxay ka maartay tiriyaan waxyaalo fara badan runtii waxa weeyaan maartay dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan miigaaga dhagama leh haduu malaga dhawaaqana waxa weeyaan maartay dadkii wali wixii shalay soo maray wali dahashanaysa wali wala si daba taagay wixii shalay soo maray wali si daba taagay marka waxaan wada Soomaaliyeed qalbigooda barcad mariyo ilaahay dadka maartay soo sheekh xaqa iyo maartay ha tuso ayaan umada Soomaaliyeed iyadun ba walaalaa wax xumaalo dhex yaala ma jiro laakiin dad baa waxay tumayaan durbaanka colaada iyo durbaanka xumaanta ayay maartay u tumayaan si ay uga faa'iideystaan dadkaasi oo ay u noqdaan dad maartay soo sheeg deegaan la'aan oo dhulkooda la qaato oo la burburiyo oo kadibna markaasi ay ka faa'iideystaan taasina waxay keenaysaa in maartay xasiloona darro uu wadankaasi ku jiro muddo dheerna uu qaato runtii wax lagu farxan maaha anigu waxaan dareemayaa run ahaantii waxa la yiraahdo nin qof dana gaara leh in maartay oo dan gaara isagu wata in danta guud loo burburiyo lagu raaco oo marka la yiraahdo ninkaasi waa hayeeyigii iyo waa ninkayagii iyo heerooga ka looma yaqaan adduunka deehaliyay waxa loo yaqaan ninka geesiga cadow shisheeye iska caabiya waxa loo yaqaan mujaahid ninka diinta islaamka u dhintay baa mujaahida laakiin mujaahid ma noqonayo nin maartay soo sheegan naf bilaadan bixiyay naar baa laga gubaya haduu dhintana naar baa laga waligiiba maartay afarta cisho adduunku joogo waman xayaatu dunya la mataac al-ghurur afar cisho qiimo ma laha nolosha adduunyada waa laba cisho weeyaan bari markuu tagana qabrigiisa cid la gelaysa ma jirto reeheb lama gelayaan qansax ma gelayo reey quraacna la gali maayaan laakiin qabriga markuu galo isaga xisaabtu ku bilaamaysa marka waxa weeyaan qofku waxa wanaagsan inuu waxa xumaanta in la isku macnaha in maartay la isku kalkaalo oo la isku garab istaaga maaha midda kalena waxa weeyaan qofku walaalka xitaa haduu madluun yahay iyo hadii uu maartay laga gardaran yahay ba labadaba inaad gacanta qabato markuu dulmiilo yahay dulmiga dadka dulmayo
iyo marka la dulminayo labadaba inaad garab istaagtood gacanta qabataa la rabaa. marka waxa weeyaan anigu runaantii waxaan aaminsanahay wadankan ilaahay ka dhigo wadan dad qalbigooga burcad isku mariyo oo wanaagsan oo maaragtay soo sheeg 40 sanadood bay ku jireen adduunkiiba ka qayriyay runaantiiba ama waqooyi ka yimaado ama koonfur ka yimaado ama bari ka yimaado ama galbeed ka yimaado runtii waxay ahaayeen Soomaalidu dad iyagu maaragtay soo sheegeen le dad maaragtay hayin leh oo maaragtay hiigsi leh oo maaragtay isla weynidii iyo qabkay lahaayeen Soomaalidu dhulkay ku dhacday wala ogaaday taa adduunkana intay doonayeen waa intaas laakiin dadka waxa daran cadowgaaga waxa daran maaragtay qofka cadow kalkaalka waxa la yiri gudunay maad goyseen barkay baa kugu jira waxa weey waxaan aaminsanahay waxa Soomaali maanta halka dhigay waxa weeyaan cidii baxtay ee arintaasi ka baxday ama wuxuu doonaa ku baxo maanta waa la mid wuxuu qabaa ma jiro wuxuu dhaamaa ma jiro balanbar iyo hoog muu isaguna ku nool yahay maalin walba waxa weey dadka ka soo qaxay soo cararaya waa dadkii uu markaas dagaalka u baxay labadii jabhadii baxo dhan dadkoogu iyo helkoogu bala qaxiyay nimankaasi waxba ma soo kordhin baan oran karnaa markaa xisb dadka la oranaya maartay soo sheegan jabhadaha xiliyada baxay wax dalku bay burburiyeen waxay u soo kordhiyeen haba yaraatee oo la oran karaa ma jirto mid labaad ee kale aan rabo maartay inaan isagana aan taabto oo xoogaa inaan ku yar dheeraada ay tahay ummaddu waxa weeyaan waa inay garato cadowga ummadani waxa weeyaan waa cadowga Ingiriiska waa cadowga guumeystihii wadankan doonayay maaha cadow shisheeye cadowga sokeeye dadka sokeeyo Carabi labadiisa daamood baa istiida wala istiidi karaa de Soomaali waxa weeyaan wax kale isku malaysay geela iyo maartay soo sheeg dhul iyo beeroon bay taasna xeerar bay sameeyeen wax dhaqan iyo xeer bay ku kala bixi jireen oo ku kala heshiin jireen laakiin arinta ugu weyn waxa weeyaan wax kale oo meel kale laga soo waariday oo meel kale laga keenay oo iyagana maskaxdooda ka weyn xisaab bayna qaadi karin on weligood de formulaheeguna sidoo u dhacaya ahtaadi garano formula oo cajiib loo dhiibay xisaabtaas ay qaadi kari laayihiin waxaana nimanka loo dhiibay nimanka siyaasiyiinta weeyaan kulay rago barashada cilmiga gaaban waa lagu kadeedmaabahay waxaan aaminsanahay qofku markuu cilmigiisu aad u gaaban yahay aqligiisuna aad u gaaban yahay wasal qurmisa intii kala ayuu saameynaya marka waxa weeyaan waa sababaha loo degi laayahay waxa weeyaan fudaydka salfudaydku xaawu jannadii ka saaray dad badan buu salfudaydku ka saaray oo aanu ogeyn waxa weeyaan maartay salfudaydkaasi uu keenay waxa maanta halka dhigay ay tahay inaad baan idin salaamaya meel kasto dunida dacaladeeda aad ka joogtaan insha Allah maartay waxa weeyaan aad waxaan u doonayaa inaan maartay soo sheeg soo saaro hawa kan waan helay marka alxamdulillah imika maartay soo saaray كل وصول آد وفرحم كل يوحنا آد ومارتي هالكن مارت كعذر دارنا يا ضدك ويلك يا ضدك مارتي دادو بينه قالي سيدي يتمنى سنة صور كم وصور آد وفرحم هكفوا قادم إني داوضان عدي كلام مارتي لكن سي كل يرن كرتين داوته وإسكدا ويداون كرتا لكن داوشون ما إن لغن أو مارتي لسكوتشير أو قف ولا كاي وحتى كرتا أترتو هي مهيدة هالكن هو Empire of the World oo idin soo gudbinaya barnaamijka faqadada siyaasadda iyo arrimaha bulshada caaw waxaan u qaadaa dhigaynay soo sheegana xasuuqii baana ama the black day maalintii madoobeyd oo ka maartay ka dhacday oo ay geysteen taliskii nuglaa maartay migiste hayla maryan iyo maartay soo sheegana ururkii la oran jiray jabhadii SNM oo markaa si ba'an uga xasuuqday dad rayida gobolka awdal February 4/1999 waxaan kaloo maartay ka hadlaynay oo soo dhameynay barnaamijkaasi waxaan imika markaa doonayaa inaan maartay guda galo barnaamijka qaybtiisa labaad ee kale oo isaguna ahaa in maartay gabar Soomaaliyeed oo maartay soo sheeganay magafayaasha ku haystaan magaalada dalka maartay Liibiya in maartay dadkaasi qof kastaba wixii uu maartay awoodi karay walaalkii oo ku tari karana oo caawiyo haduuna caawi karaynin hadii uu qofka aad garato eelkiisa iyo qaraabadiisa inaad gudbiso
oo aad u sheegto maaragtay ciddii wax u qaban kartay kale ama walaalahaaga kale ee aad garanaysa aad wax la wadaagto waxaan leeyahay markaa barnaamij waxaan tusinayaa insha Allah waa sawir aad u foolxun ما جعلين لكن وحوين والله ضمارمان قبل ولا شيء إنه مارتي الصوماليات وديب نوع سلوكي سنة إن قف بوات كيسان كراو ماما لينا يوم وان إذن داود سيني إن شاء الله برنامج كنا ضدكم أنت بدن في فيسبوك غير كده ولا أركان دقح وين بعد دبر كلا قصاري كدي مسحهم بورب لعقت الضرب ورنا يا حاول سبحان الله مصبيحي waxaas uu dadka baday مصبيحي waxaas uu dadka baday inta badan dadka ka soo baxay Liibiya lagu qabtaa waxa uu badan dadka gobolada waqooyi inta marka laga hadlo بريتا lagu siinaya gabadha cidda wajigeega garata ama sacidda garanaysa maartay soo sheegay heladeeda iyo qaraabadeeda maartay hal xidhiidhan maartay waxa weeyaan kulay waxa laga yaabaa inuu qofkaasi ehelkooguna awoodi karaynin waxaan la weydiinayo cidii ilaahay dartii maartay ku caawin karta ee ilaahay dartii maartay soo sheegay la bixi karta inuu qofkaasi ku caawiyo walaalkeena gabadha walaasheena maartay dhibaatada lahayd waliba waxa weeyaan waa gabadh awra waa gabadh maartay Soomaaliyeed كل ما أوران كرنو هذا البوينت وحي كبدن مارتي لما سي جالي كرو oo waxa uu qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qadaray inuu dhibta gal Ilaahay ka saaro cadawga maartay ku jiraan gacantooda Allah ka soo saaro intaas leenahay caawa waxa weeyaan halkani waa Empire of the World oo idin soo gudbinaya barnaamijka faaqidada siyaasadda iyo arrimaha bulshada caawa halkaas kaga baxaya barakallahu fiikum waxaan leeyahay maartay habeen wanaagsan kulanti dambe xiiso leh iyo maartay insha Allah wassalaamu calaykum aniga waxa barnaamijka idin daadinaya walaalkii Mukhtaar Dulmadiid wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh